السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay ardayda badan ay weydiiyeen oo aan maanta isla share gareynay Mastercard Foundation Scholarship oo ah dadka masterka ah oo darajada labaad doonaya jaamacad. Marka muxuu ahaa mastercardka waxaan rabaa inaan halkan ku faahfaahiyo. Haddii aadan follow na soo dheh YouTube-kaygana waxaan soo dhigi doonaa sida application-ka loo buuxinayo iyo shuruudo badan. marka talaabo ayaan hadda maanta idinku sheegayaa. Mastercard Foundation-ka sidiisaba si toos ah uma dalban kartid Mastercard Foundation dhexdiisa. waa inaad dalbataa jaamacadda iskaashi la leedahay barnaamijkan. dooro jaamacad ku habboon natiijooyinkaaga dugsiga sare iyo haddii aad u baahan tahay imtixaan Ingiriiska sida IELTS ama jaamacado kaa deynayo. kuwaasaa fiirsanaysaa jaamacado badan oo wada shaqayn la lahaan jirta. talaabada labaad, shuruudaha u qalmitaanka eligibility criteria. hubi inaad buuxin karto shuruudaha inta aadan dalban oo application-ka aadan bilaabin. waa inaad tahay muwaadin Afrikaan ah, degan Afrika, da'da ka yar 26 jir haddaa bachelor dalbanayso, haddaa master degree dalbanaysana 35 sano ka yar. waa inaad la kulantay caqabado dhaqaale, taas waa muhiim, financial difficulties. waa in aad leedahay natiijooyin fiican ama heer sare aad uga soo baxdo jaamacadda ama dugsiga. waa inaad leedahay waayo aragnimo bulshada lagu caawiyo community work oo taas ardaydeena ay aada ugu liitaan. tallaabada saddexaad waxay tahay dalbo gelitaanka jaamacadda marka hore. halkaas ayay dad badani qalad ka galaan. Mastercard Foundation toos loogama dalbado jaamacadda. hadda waxaan arkayaa Berkeley jaamacad la yiraahdo oo aan YouTube-kayga soo dhigi doono Yasmin Kastan oo qaadanayo xataa hadduu aad Kenya ama wadamo kale ama Yemen aad ku tahay qaxooti. halkaas ayay dad badan qalad ka galaan. tag bogga jaamacadda aad dooranayso, samee account ka sameyso, buuxi codsigaaga online, kadibna soo gudbi. marka aad dirto codsigaaga hubi inaad heshay application number. application numberkaaga waa muhiim, meel ku qoro. waa isku xirka codsiga jaamacadaada iyo codsiga deeqda lacagta kaa bixinaysa Mastercard. tallaabada afraad waa foomka deeqda Mastercard. jaamacado qaar waxay foomka Mastercard u diraan gudaha portalka, tusaale ahaan University of Cambridge, laakiin kuwo kale sida University of Western Cape waxay foomka ku leeyihiin bog gaar ah oo hoos yimaada scholarship-ka ama financial aid. foomka waxaad ku muujin doontaa hogaamintaada leadership skills, shaqada bulshada aad qabatay community work, dhibaatooyinka dhaqaale ama bulsho ee kugu xeeran, xataa haddii aad tahay dhagool, haddaad naafo tahay, waxaasoo dhan way ku qoseeyaan. tallaabada shanaad, dukumentiyada loo baahan yahay. isdiyaari inta aadan foomka bilaabin ka hor.